waxaa ka soo qayb galay wasiiru dawlaha arrimaha dibadda Somaliland Professor Maxamed Mixilla Boqorre xubno ka socday ciidamada kala duwan ee dalka ganacsato bulshada Ethiopian ku nool Hargeysa iyo marti kale intii ay munaasabadu u socotay waxaa madasha lagu soo bandhigay muuqaal ka turjumaya horumarka ay ka sameysay dawladda Ethiopia dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha caafimaadka dib u dhiska wadooyinka beeraha warshadaha waxbarashada iyo adeegyada kale ee bulshada ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay Brigadier General Breheye Tasvai wuxuu ka warramay xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya Somaliland sidoo kale wuxuu tilmaamay inay maanta tahay maalin farxadeed oo qomiyadaha Ethiopia ay farxad u tahay xuska 12aad ee maalinta qomiyadaha Ethiopia oo ku beegan 7 bisha December Ethiopian በዓላችን የተገኛችሁ የሶማሊላንድ ታዳሚዎች ከሁሉም በማስቀደም ዛሬ ለ12ኛ ጊዜ በሚከበረው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ታሪካዊ በዓል ከኛ ጋር ለማክበር እዚህ ስለተገኛችሁ የተሰማኝ ደስታ ከፍተኛ መሆኑን እየገለጽኩ ለዚህ ታሪካዊ በዓላችን እንኳን አደረሰን ለማለት እወዳለሁ። እንደሚታወቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከዛሬ 26 ዓመታት በፊት ለበርካታ ምዕተ ዓመታት ብዙ ገጽታዎች የነበሩት የጸረ ዲሞክራሲ አገዛዝ ጦርነት ድህነት ኋላ ቀርነት በሀገራችን ተንሰራፍቶ ቆይቷል። ከዚህ አስከፊ ሁኔታ ለመላቀቅ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ለዘመናት በተለያዩ መልኮች መራራና እልህ አስጨራሽ ትግል በማካሄድ በመጨረሻ አፋኙን የደርግ ስርዓት ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በማስወገድ ለዘመናት ሲያልሙት ሲመኙት የነበረው ዲሞክራሲ ሰላምና ልማት በሀገሪቱ እንዲረጋገጥና ለዚህም ዋስትና የሆነው የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት ጸድቆ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝቦች ቋንቋቸው ባህላቸውን ሃይማኖታቸውንና ታሪካቸውን በእኩልነት የማልማትና የመጠቀም ጀነራልka oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri sida la wada ogsoon yahay xukuumadihii kala duwanaa ee dimuqraadiyadiidka ahaa ee muddada dheer hoggaanka dalka hayay oo sababtay saboolnimo dib u dhac dagaal uu dalku ku baaho si xaalad qallafsan ay uga baxaan qomiyadaha Ethiopia waxay halgan qaraad la galeen xukunkaasi caburiska ahaa wixii ay sanado badan ku hamiyi jireen oo ahayd nabad horumar waara oo dalku taabagal noqdo oo damaanad buuxda u noqday dastuurka dalka oo cod buuxda ay ku ansixiyeen oo xaqiijisay horumarka reer Ethiopia luqadahooda dhaqanadooda diintooda iyo taariikhdooda hadalka safiirka oo ahaa luqadda xabashiga oo aan soo turjinay ayaa waxa kamid ah hadaladiisa dastuurkayagu wuxuu si buuxda uga tarjumayaa xuquuqaha ummaduhu ay leeyihiin oo muddo gaaban lagu tallaabsaday horumar dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo xaqiijisay ummad si siman uga faa'iidaysata khayraadka diin ee dalka halku dhiga sanadkan 2017 dastuurkayagu waa dimuqraadiyadda midnimada horumarka xuska taariikhiga ee qowmiyadaha Ethiopia u dabaaldegaya annagoo isku duuban iskaashanayna dulqaad iyo horumarinta Ethiopia cusub ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ሳይሸራረፉ እንዲከበሩ ሕገ መንግስቱ አረጋግጧል። ሕገ መንግስቱ የሀገራችንን ነባራዊ ሁኔታ የሚያንጸባርቅና ያረጋግጣቸው መብቶችን በዓለም አቀፍ መስፈርት ሲታይም የላቀና ለሌሎችም ተምሳሌት የሆነ ዘመናዊ ሕገ መንግስት ነው። ክቡራትና ክቡራን ሕገ መንግስታችን የህዝቦችን መብቶችን በተሟላ እና በሰለጠነ አኳኋን የመለሰ የብሔር ብሔረሰቦችን የአንድነትና የመቻቻል እሴቶችን በማበልጸግ በአጭር ጊዜ በርካታ የፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ arrimaha dibadda Professor Maxamed Mixilla Boqorre oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay oo ku hadlayay afka dawladda Somaliland ayaa ka warramay xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya Somaliland Ethiopia dhinacyada ganacsiga amaanka iyo soo socodka labada shacab ku hadlaya magaca jamhuuriyadda Somaliland waxaan rabaa inaan sheego halka kale inaan salaam uga diro dhammaan qowmiyadaha Ethiopia meel kasta oo joogaan madaxweynahooga ra'iisul wasaarahooga iyo dhammaan qowmiyadaha meel kasta oo joogaan waxaan ogaataa inaad sidaad maanta u dalbaad degaysaan
goob kasta aan nila joogno oo qalbiga iyagu haddaan somaliland nila joogi doono oon iminkana nila taagannahay waxaan qiyaasaynaa inaan nila darbaaldegayno maanta xukuumadda somaliland xukuumad cusub madaxweyne cusub baa qabsaday musabix cabdi waad ogtihiin maalmahani ayay wuxuu la wareegayaa muddo dhow waxaan aad ugu kalsoonnahay in xidhiirka somaliland iyo ethiopia iyo horumarka iyo nabadgelyada ka dhaxaysaay uu sii xoojin doono halkii hore ay taallay uu ka sii qaadi doono oo uu sii wanaajin doono